السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي كسودوادا يوتيوب channel Gao Technology. هدي تاي مركي كوه رئيسي وحنكو حسوسنا أنا سبسكرايب channel كسرته. فيديو قنا الله يجريسه أنا شيء جريسه سوى أصحابنا نجارو. عشر كياني هوري عشر كان كوري بيسيجها وحنكو صوبرنا HTML basics ومهم صناعين سلسلة لوسو جليو image لوسو جليا sidoo kale sida loo sameeyaa links casharadaas oo basic ah ayaan ku soo baranay inta badan maanta waxaan qaadan doonaa casharkeena oo ku saabsan yahay HTML page markii aad sameynayso waxaad u baahan tahay waxa la yiraahdo layout ayaad u baahan tahay waa maxay layoutku yani waa qaabka website-kaaga uu dhisan garaysan website-kaaga markii la soo booqdo home page-kaaga website-kaaga dhan qaabka uu dhisan garaysan yahay ayaa waxa la yiraahdaa layout-ku qaab badan loo sameeyaa page layout-ku waxa loo sameeyaa qaab badan marka page layout marka la sameynayo inta badan waxa la isticmaalaa waxa la yiraahdo iyadoo la isticmaalayo table ama iyadoo la isticmaalayo waxa la div tag ama division maanta waxaan ka doonaa marka web layout ayaa maanta casharkeena ku saabsan doona web page layout ayaa maanta casharkeena ku saabsan doona web page layout-ku markii la sameynayo waxa loo baahan yahay table ayaan ku sameyn karnaa anagoo table isticmaalayna inaan website-keena ku habayno ama ku design gareyno laba waxaan isticmaali karnaa div tag ama division si aad taqaanaba table iyo div tag maxay ku kala bedelan yihiin marka table-ku inta badan ku isticmaala waxa la yiraahdo rows organize data by rows and columns rows waa jiif daatada in jiif loo taha column waa in joog loo taha marka maanta casharkeena wuxuu ku saabsan doonaa web page layout sida loo sameeyo markii aad joogto HTML inta badan luqadda HTML-ka wax saad uma qorxin karna because waxay u baahan tahay CSS u baahan tahay inta badan marka maanta waxaan isticmaali doonaa markii web page layout ayaan HTML ku sameyn doonaa waxaan isticmaali doonaa code editor-keena la yiraahdo visual code ayaan isticmaali doonaa markii intaan soo galno control N ayaan leenahay page cusub control S waan save garaysan doonaa waxaa la weydiin doonaa xagee dhiganaysaa waxaan rabaa inaan dhigto desktop-ka waxaan rabaa inaan ku qoro web page layout .html maxaa waaye aan iri horaan soo baran waa extension-ka luqadda HTML waayahay markaan sidaan soo galno inta waxaan ku qoran doonaa web page ayaan iska dhigi doonaa body-geena marka maxaan ku qori doonaa body-geenu waxaan ku qori doonaa website kasta ama web page kasta ama layout kasta qof kasta ama shakhsi kasta ama designer kasta fikrad macnaha wuxuu isticmaalaa design asaga macnaha qof kasta wuxuu jecel yahay marka maanta waxaan u shaqeyn doonaa website web page-ka rabnaa inaan sameyno waxaan rabnaa inuu noqdo for like this no harna okay no so gabi somehow
maanta waxaan doonaynaa website-keena qaabkaan u design garan doono page layout-keenu waxaan rabnaa inuu noqdo kan waxaan oran karaa cadaan sam waxaan rabnaa iska kow qaybta sare waxaan rabnaa inaan soo saarno sawir panel design-ka rabnaa inaan diyaarsano qaybta ku xigta inta badan website-yadu waxay leeyihiin waxa la yiraahdo menus like home about waxyaalahaas qaybta ku xigto waxaan rabnaa inaan maanta soo gelino image slider aan iska soo gelino maadaama HTML isticmaalayno script aan isticmaalayno oo sawir socona inta badan soo gelin doono luqadda iska tahay HTML oo kaliya waxaan samayn doonaa sawir oo kaliya iska soo gashan doonaa qaybta ku xigto waxaan soo gashan doonaa qoraallo ayaan soo gashan doonaa image aad soo gelin karnaa image iyo qoraallo ayaan soo gelin karnaa oo hadhow markii click la siiyo aan u yeeri doonaa links aan ku xiri doono qaybta ugu dambeysana waa footarka ayaan ka dhigi doonaa footarka ayaan ka dhigi doonaa design-keena maanta qaab noocan ayaan u diyaarin doonaa waayahay kow waxaan rabaa intaan intaas gaarin inaan ogaano horta table sida loo sameeyaa table waxaan furan doonaa tagga table markii tagga aan furno waxaan ka dhex furan doonaa tr table row gudihiisa waxaa ka dhex shaqeeya td ama table data so rowska markii aad rowska qorto waxaad dhex gelin doontaa columnka markasta ku dhex jiraa for the rows tablekan hadda wuxuu ka kooban yahay tablekan wuxuu ka kooban yahay hal row iyo hal column haddii aan td kale ku sii daro tablekan waxa uu ka kooban yahay one row iyo two columns one row iyo two column ayuu ka kooban yahay rows waa jifutaha column waa joogutaha haddii aan intaan soo koobiyeeyo control c control v aan yiraahdo haddii meeshaan ku qoro column one intan igu qoro column two inta igu qortaa column one intan waxaan ku qori doonaa column two waayahay markii aan intaan qorno control s balaan niraahno soo kicino halkana haddii halkana kusoo kicino maxaa arki doonaa maxaa isbedeli doona okay uu yar culus yahay maxay u dhigin okay hay aan sii badino aan ku darno somehow control c control v control s haddii inta aan ku darno maxaa dareemaysaa hadda table maan sameyn waa may haddii aan control plus iraahdo wax table la yiraahdo maaha waa qoraal iska qoran sideen table ugu dhignaa kali ah waxaan samayn doonaa waxaan tegi doonaa tableka waxaan dhihi doonaa borderkiisu haddii aan one ka dhigno hadda zero ahaa haddii one ka dhigno waxaad dareemaysaa qaab table ahaan ah in loo sameeyo qaab table ahaan ah in loo sameeyo xogaa saddex ka dhigno si ay u quruxsanaato control v waayahay haddii aan iraahdo refresh sidaan baa laga dhigay okay haddii aan rabo tableka inaan isku daro labadan column haddii aan rabo inaan isku daro maxaan sameynaa waxaa la isticmaali doonaa waxa la yiraahdo column span tusaale ahaan midka koowaad waxaan rabaa inaan isku daro midka labaad waxaan iska tiri doonaa hal xabo midka koowaad baan tegi doonaa waxaan dhihi doonaa column span
2 إلا لو حبة أنا اسكو كول سبان 2 معناه محاوى كان لبدا حبة سوق كيفه هذا ريفرش تراهو محارك دون تايم بسوق كافري لبدي كولوم بين اسكو فري وايا هدي أنا رأي هنا اسكو فرو لبدا رو 1 رو 2 رو 3 كان لبدا أنا اسكو فرو maxaa sameynaa markaa rabto inaad isku furto rows waxaa isticmaali doontaa wax la yiraahdo rows band waxaa isticmaali doontaa wax la yiraahdo rows band ayaa isticmaali doontaa inta lagi akaymaw waxaa iska dhihi doonaa rows band 2 control waxbaan qaldiyaa control z meel qaldana ku qoro qaldanahay macnaha haddii aad wax qaldo ma ku socon doonto waa laga joojin doonaa inta imaano halkan imaado waxaan rabaa inaan isku furo kuwana isku furaa column 1 iyo column 1 kana isku furo maxaa samayn doonaa kow kana iska tiri doonaa labo rows baan ayaan ku dhex furi doonaa waa column waa rows markaa rabtaan isku furto waa laba row waa macna maxaa arkaysaa in la isku furay midka hore iyo midka hoose labada la isku furay qaab noocan markaa rabtaan isku furto column waxaa la isticmaalaa column baan markaa rabtaan isku furto rows ayadana waxaa isticmaali doonaa waxa la yiraahdo rows baan ayaa la isticmaalaa sida ku aragtaan waayo haddii aan hawsheena shaqadeena gudaha u sii galno hawsheena waxaan rabaa kow tables kana badsado control c waxay dhigtaa v control v page layout keena anagoo isticmaalna table inaan diyaarnaa rabo maanta control v column 1 column 2 column 3 kana waxa waaye column 1 kana muxuu noqon doonaa column 2 mid kana waxa uu noqon doonaa column 3 waayahay haddii aan timaano waxaan dhihi doonaa column 1 column 2 column 3 horta meeqa xabaan u baahanahay haddii aan tagno pageskeena waxaan u baahanahay kow labo saddex afar shan footarka uu shan ku yahay okay si aanan u wareerin aan kala jarano aan quruxsan midkan koowaad wuxuu noqon doonaa shift number 1 no shift number 1 waxaa noqon doonaa row 1 row koowaad okay control c midkan wuxuu noqon doonaa meeqa row u baahannahay macnaha inta row u baahannahay rows inta row aan u baahannahay meeqa ayaan u baahannahay kow labo saddex afar shan ayaan u baahannahay midkan wuxuu noqon doonaa row 2 rowda labaad midkanna waxuu noqon doonaa row 3 soo si aan kala qaybsano inta noo soo qaad control c control v kan waxuu noqon doonaa row 4 soo kanna waxuu noqon doonaa row 5 exact waayahay haddii aan refresh iraahdo maxaa isbedeli doona sidaan baa dhacday minus sidaan baa dhacday waxaan rabaa tablekan kow inaan weyneeyo labo aan centerka geeyo saa shaqo ugu qabano tablekan ayaan harna page layoutkeena inaan ka samayno kow waxaan samayn doonaa inaan balaarino waxaan siin doonaa width balac inta badan widthga waxaa wanaagsan inaan halkan ka siin widthgiisu widthga waxaan siin doonaa 1000 pixel ayaan siin doonaa balacis 1000 pixel
control minus boqol aan ka dhigi doonaa kun pixel aan siinay waxaan rabaa sidoo kale inaan geeno centerka sidaan u geeno waxaan isticmaali doonaa tag la yidhaahdo center kadib halkaan aan kasoo qaadi doonaa waxaan keeni doonaa meesha ugu dambeysa tableka uu ka xiran yahay ayaan control v ku dhihi doonaa waxaad dareemaysaa tablekeeni in centerka la keeno waxaan rabnaa marka inaan maamulano kow qaybtaan sare aan soo gelino panel aan isku furno qaybta labaad aan soo gelino waxa la yidhaahdo menuska homeka aboutka qaybtaan aan soo gelino sawir qaybta tanna aan soo gelino qoraalla iyo aan soo gelino sidoo kale qaybta ugu dambeysana aan ka dhigno footerkii webpageka qaybta kore si aan u habayno waxaan siin doonaa ballacaan siin doonaa waxaan siin doonaa height waa row 1 kow inta imaan doonaa waxaan dhihi doonaa heightkiisa ha ii noqdo heightkiisu waxaan siin doonaa as example 150 pixel 150 pixel ayaan siin doonaa maxaa dhacay hal mar saddexdaba hal mar ayay isla laaban doonaa haddaan click siiyo waxaad dareemaysaa saddexdaba one time inay isla weynaadeen ma rabo marka kala qaybsanaanta waxaan rabaa dhammaan in isku kay furo oo one panel image san usoo geliya laga dhigo waxaan samayn doonaa waa isku furi doonaa waxaan dhihi doonaa kuwa labada iga tiri labo waxaan imaan doonaa td waxaan dhihi doonaa colisban 3 ayaan dhihi doonaa okay imageka meesha waxaan soo geli doonaa kow labo saddex afar soo afar aan ka dhigi doonaa marka hadda dhammaan gaaban kasoo gashan doonaa aan ka socono waayahay qaybtan waa soo geliyey qaybtan kale marka waxaan rabaa iyadana soo kale inaan isku furo oo qaybta sawirka aan soo gelin lahaa menuska ayadana aan isku furo waxaan samayn doonaa qaybtan maxaa waa marka qaybtan kulama ahana waxaa waaye for banner waa bannerkeena row 2 haddii aan imaano isagana sidoo kale waa isku furi doonaa waxaa naga tir kuwa waxaan siin doonaa height aan siin doonaa heightkiisu waxaan rabnaa inaan ka dhigno somehow 45 or 40 pixel sidoo kale waxaan dhihi doonaa colisban 3 saddexdaba soo kay furo refresh ayadana waxaad dareemaysaa in somehow la isku dhex furo qaybtan hoose haddii aan u imaano waa qaybta aan rabno inaan soo gelino sawirka inaan soo gelino ayadana waxaan samayn doonaa sidoo kale oo row 3ga ah waa isku furi doonaa halkaan naga tir kow waxaan siin doonaa heightkiisu waxaan ka dhigi doonaa 400 oo pixel columnskana waa isku furi doonaa waxaan dhigi doonaa colisban 3 saddexdaba soo kay furo أنا حرمنا صدق حرام بإنسكو إنسكو فرو أدري مثلا إن أفر بقول أو بيكسل السي قيمتها هوسي حرمنا سو جليو قرآن لا يو تكستي حرمنا سو جليو سو كربطنا عسمي هذا ودي كليك لسيو إن بيت كلا لوجيو read more information إنك سو آخر وحاس إنك سمين كرا أيام مشان سو جليو دونا أفر حبة أيام حرمنا سو جليو سو هذا صدق حمدان يجي نحاول حبة كنا سودرو control C haddii marka meeshaan afar ka dhigo kuwana aan dhihin colisban 3 maxaa dhici doono khaladka dhici doono fiirsa haddii aan refresh raahdo waxaad dareemaysaa in meeshaan uu dhacay khalad wixii ay kala dheeraadeen so si aan ku saxno waxaan samayn doonaa colisban 4 because ila 4 column haddii uu ka kooban yahay row kasta waxa uu ka kooban yahay 4 column so waa inaan meelihii saddex lahaa aan ka dhigno 4 meel kasta colisban isuu kay fur 4 sidoo kale colisban isuu kay fur not for 3 it's 4 so afar isuu kay fur haddii aan idhaahdo refresh waxaad dareemi doontaa hal xabaadan still way start colisban position waxaad dareemaysaa in isku furay 4 xabo kuwa waxaan rabaa markii iyana cabir yara siiyo
aan isku furo diyan intii maado noobta inaan isku furo waxaan dhihi doonaa trt san tegi doonaa kow waxaan dhihi doonaa heightkiisu ay la mid noqdo 60 pixel 60 pixel ay la mid noqdo not waa yaryahay still waxaan rabaa inaan ka dhigo somehow 300 ayaan rabaa inaan ka dhigo waa sidee kale sidoo kale waxaan rabaa inaan imaado footarka asagana isku furo kadibna aan cabir yar siiyo haddii aan footarka imaado intaa iga tir waxaan dhihi doonaa kow koolis baan 4 sidoo kale waxaan siin doonaa heightkiisu waxaan ka dhigi doonaa 60 pixel 60 pixel aan ka dhigo si haddii uu okay noo noqdo hadda waxaad dareemaysaa xoogaa in shape-kii uu soo yahay waxaan rabaa kow qaybta koowaad inaan soo geliyo sawir panel qaybtan labaad waxaan rabaa inaan ku qoro menus-kii home about waxaas inaan ku qoro qaybtan image slide baan rabaa inaan soo geliyo qaybtanna waxaan rabaa inaan ku qoro qaybtan waxay noo noqon doontaa qaybtan waa menus waxay noqon doonaa menuskiina qaybtan sawirkoona soo gelin doona waa image slider keena okay kuwan waxaan iska dhihi doonaa section 1 sidoo kale section 2 section 3 section 4 waya intan waxuu noqon doonaa 4 footarkiina ayuu noqon doonaa haddii aan refresh iraahdo waxaad dareemaysaa in xogaa uu is hagaajiyey oo page yar quruxsan inuu yar noqday marka shaqada waa sii wadi doonaa maadaama uu cabirka noo yahay kow waxaan rabaa meeshaan soo geliyo panel laba nooc waa samayn kartaa inaad cabir panel inaad photoshop tagto ama sawir isku cabir ah inaad soo degsato oo cabirka asaga ha saarto aad u baahanin inaad hagaajiso like this tusaale ahaan waxaan rabaa inaan qaybtan koro hadda haddii aan ku laabto waxaan rabaa inaan qaybtan sawir soo geliyo qaybtan sin sawir soo geliyaa kow ayadaan tegi doonaa horta waxaan tegi doonaa bannerkeena bannerku waa kan waxaan samayn doonaa intaan dhihi doonaa waa iska tiri doonaa meesha waxaan dhihi doonaa image src waa source-ki waxaan dhihi doonaa banner sawir igu jiro oo cabirkiisu saxan yahay banner.png haddii aan control s iraahdo oon refresh gareeyo waxaad dareemaysaa sawirkii inuu si toos ula ekaayo macnaha sawirkan waa isku cabir waa macnaha cabirkan iyo aniga soo saaray markaan photoshop ku hagaajinayay sawirku cabirkana soo saaray haddii sawir cabirkiisu uu qaldan yahay oo weyn haddii uu adiga tusaale ahaan haddii aan iska iraahdo gaabo dood tusaale ahaan sawirkii sidaan kaa noqdo maxaa samayn waa jeeda aad u weynaaday sidaan wax u kala halaabeen maxaan samaynaynaa markay saa noqoto haddii mar sidaan kaa noqoto kow waxaad samaynaysaa inaad u yeesho width iyo height haltigaana tiri doonaa kow waxaan dhihi doonaa widthgiisu baliciisu ha ila mid noqdo 1000 pixel waaya heightkiisu asagana ha ila mid noqdo 150 pixel macnaha waa u sheegaysaa intii aad adiga siisay cabirka bannerkeena naqa waay widthga guud ee tableka waa 1000 pixel cabirka bannerkeenu heightkiisa ama dhererkiisuna waxaa waaye 150 pixel waa inaad u sheegto tiraahda
height widthgiisu ama ballaciisu ha ila mid noqdo bannerka ballac kan ha ila mid noqdo heightkiisuna ha ila mid noqdo heightka hor soo siin marka image-ka meesha inuu ku fariisana marka koos isku cabiraan siin haddii refresh yiraahdo waxaad dareemaysaa inuu ku fariisto meeshii loogu talagalay ujeedaan exact one toos ugu saxno marka aan iska tirno maadaama uusan asaga muhiim u ahayn laakiin waxaan rabaa inaan ku tuso kaliya sawir kasta oo aad soo gelinayso bannerkaaga inaad maamuli karto macnaha sida adiga u maamusho ay mar kasta ku xiran tahay okay intaan haddii aan iska bedelido oo yidhaahdo banner.png oo sawirkeena iska soo qaato refresh okay bannerkeena waa aragtaa marka waxaan rabaa inaan sameeyo qaybtan menuska inaan soo geliyo home about waxaas inaan soo geliyo maxaa sameynaa kow waxaa imaadi doonaa menuskeena imaadi doonaa menusku kow waxaan soo gelin doonaa ahref ayaa isticmaali doonaa waxaan iska saari doonaa for hash halkan waxaan isticmaali doonaa home haddii aan control c yiraahdo control v control v control v okay home history about us harfad iska gish for vision iyo mission sidoo kale contact us contact for us haddii aan raadi refresh maxaa ka doontaa inay sidaan noqdeen waxaan rabaa kow inaan qaybtan aad siiyo color yar oo yar quruxsan inaan kow siiyo si aan u aragno waxa sir bedelayo waxaan rabaa qaybtan inaan siiyo color inta imaadi doonaa waxaan dhihi doonaa bg color colorkeeda iga dhig navy haddii aan idhaahdo taas bedelayo ya madow blue oo tiqi waa navy qaab noocan waxaan rabaa xabadda koowaad inaan hal xabaan samayn doonaa meeshaan marka waxaan ku darsan doonaa xoogaa css yar inline css inline css yaraan samayn doonaa style ayaan isticmaali doonaa style markaa isticmaalo kow waxaan dhihi doonaa colorkeeda colorka farta kaa qoraysa oo kaliya color ayaa isticmaali doontaa colorkeeda iga dhig white caddaan iga dhig kaliya waxaa la bedeli doonaa homekan ayaa waxaa lagaga dhigi doonaa caddaan haddii aan refresh yiraahdo homeka kaliya ayaa waxaa laga dhigay fartiisa caddaan sidoo kale waxaan rabaa inaan ka sikiyo dhinacan inaan kasoo sikiyo xogaa somehow dhinacan inaan ka sikiyo waxaan isticmaali doonaa hore waa usoo baranay special character la yiraahdo nbsb ayaan isticmaali doonaa haddii aan badino control c control s haddii aan idhaahdo somehow waxaad dareemi doontaa in waxyar kala sikadeen marka said waxoogaa mar laba haba ka tir somehow sana noqdo sidoo kale intaan u baahanahay waxaan rabaa qaybtan control v waa intay meeshaan waa qayb sirama waxaan rabaa geeskan asagana in laga soo sikiyo way qaybtan arnaa marka inuu kusoo sikado waxaan samayn doonaa oo arki doonaa ayraahdo refresh waxaad dareemaysaa in qaybtan laga soo sikiyey sidoo kale fartan waxaan rabaa hareejin yar ayaa ku jirto si videoga u jeedaan hareejin yar ayaa ku jirto waxaan rabaa inaan ka saaro fartan aan ka dhigo bold oo aan maamulo xogaa aan yar weyneeyo intaa imaadi doonaa waxaan dhihi doonaa kow
fontigu laba nooc laba xaqiiqada font family iyo font size. Fonti waa font family waa iyo font size oo isku dhex jiro. Font size waxaan ka dhigi doonaa 16 pixel. Font family waxaan ka dhigi doonaa for Arial iska dhaho. Arial aan iska yiraahdo. Hadii aan yiraahdo refresh waxaad dareemi doontaa xogaa fartan isku dash. Sum aan yiraahdo 16 aan ka dhigi 17. Hadii aan yiraahdo refresh somehow inay yarweynaato. sidoo kale waxaan rabaa inaan qoraal hoose aan ka saaro oo hagaajinta hoose waxaan dhihi doonaa text decoration mark. Text decoration maxay qabanaysaa? waxay ka saari doontaa hagaajintaas yarta oo keliya ay ka saari doontaa. haddii aan refresh iraahdo waxaad dareemaysaa in laga saaray qoraalkii hagaajinta yariista ahaa in laga saaray. sidoo kale waxaan rabaa inaan ka dhigo bold. waxaan isticmaali doonaa font weight-keedu ha uu noqdo bold. font weight-keedu ama farta qanjirkeedu waxaan rabaa inaan ka dhigo bold inaan ka dhigo. waa isbedesho. kuwaas sidee u samayn doonaa marka? keliya style-ku baan soo koobiyeysan doonaa. style-kan waxaan dhihi doonaa copy. intaanaan soo qaadan doonaa style-ka halkaan ka xiran yahay. Control C style-ka meesha aan ka soo furay ilaa meesha aan ka xiran aan koobiyeysan doonaa. waxaan tegi doonaa halkaan Control V sidoo kale like this dhammaan Control V ku dhig. ma u baahinta macnaha inaad mid kasta aad geesu dul istaagto. Control V Control S waxaa isbedeli doonaa. haddaan refresh iraahdo kuwaan waxaad dareemaysaa inay isku dhawaadeen. why? because MB special characters kala noqon midkan baa naga maqan. so midkan intaan soo koobiyeysan doonaa. intaan soo qaadan doonaa Control C kaliya meeshan kan best Control Z kan Control V ku dhig kan Control V kaliya ku buuxi meesha. MBSB ayaan ku buuxiyay. waa dareemaysaa marka. waayahay waxaan rabaa si aan u arko inaan qaybtan dhan inaan bedelo. boodigeenu aan kalarka bedelno bal cadaanka aan ka bedelno. somehow cadaan waayo aan ka bedelno cadaankan. boodigeena imaan doonaa waxaan dhihi doonaa BG color. BG colorkiisa waxaan u dhigtaa some waxaan ka dhigaa blue haddii aan ka dhigno ama waxaan ka dhigtaa cyan nooga dhig. cyanku waa colorkan maaha. somehow okay waxaan rabaa inaan soo saaro waxaan rabaa inaan sameeyo qaybtan aan rabo marka colorka idan aan ka bedelo. intaan imaadi doonaa waxaan samayn doonaa waxaan tegi doonaa image sliderkeena. image sliderka meesha ku jira waa this one. waxaan samayn doonaa waxaan tegi doonaa TR-tiisu waxaan dhihi doonaa BG color. BG colorkiisu waxay dhigtaa yellow. BG colorkiisu waxay dhigtaa for yellow. haddaan refresh iraahdo colorkiisu waxaa laga dhigay yellow ayaa laga dhigay. waayahay qoraal yar oo hariijina meesha ku jiro marka. waxaan rabaa inaan meesha iska saaro wax isku dhex jiro. waxaas inaan ka saaro rabaa spaceka inaan ka bixiyo. maxaa isticmaali doonaa? waxaan tegi doonaa boodigeenu. boodiga ayaan tegi doonaa. waa kana boodigeenu. waxaan dhihi doonaa cell spacing and cell padding. waxaa loo kala isticmaala wax la yidhaahdo cell spacing iyo cell padding. cell spacing waxay la mid noqdo 0 like sidoo kale cell paddingkiisana waxay la mid noqdo 0. waayahay
haddii aan raad refresh waxaad dareemi doontaa ma qaldan cell spacing equal to 0 cell padding asana ha ila mid noqdo zero ha ila mid noqdo control s intaan fiir waa qaldanahay intaan soo qaatay xageen qoraalka qor control x leh soo qalad inuu noogu jiro waxaan leeyahay hadduu qalad ka jira because bodyga ku dhex qoraya fiiri loogu tirigal bodygu waxaa la rabaa in lagu qoro table-keeda for this one qaladka kaas ku jira table-ka ayaa ku dari doontaa cell spacing iyo cell padding haddii aan idhaahdo meeshaan sirtaan rabaa harajintaas inay baxdo haddaan refresh idhaahdo waxaad dareemaysaa harajinta inay baxdo sidoo kale table inuu hadda qaab table u samaysan yahay waxaan rabaa inaan ka tiro table-kaas kaliya intaan tegi doonaa table-keena waxaan dhihi doonaa borderkiisa 0 borderka ayaa waxaan ka qaadi doonaa 0 because waxaan rabaa hareejimahan oo table-ka inay meesha ka baxaan waad dareemaysaa move waxaa marka table waa hadda ma dhihis marka aragto qaab yar oo quruxsan ayuu samaysan yahay qaybta hoose imaaw waxaan rabaa kuwaan yar inaan kala siiyo sectionada intii imaaw sectionada imaaw section 1 waxaan siin doonaa bg colorkiisa waxaan ka dhigi doonaa brown midkan baa u maadi doonaa isagana bg colorkiisu waxaan ka dhigi doonaa magenta ayaan ka dhigi doonaa midkanna waa imaadi doonaa waxaan dhihi doonaa bg colorkiisu waxaa iga dhigtaa blue kan waxaan dhihi doonaa bg colorkiisu waxaa iga dhigtaa section 4 waxaan ka dhignaa info kan waxaa noo dhigtaa secondary ayaan ka dhigi doonaa kan waxaan ka dhigi doonaa danger ayaan ka dhigi doonaa waxaad dareemaysaa marka in kalar ay yeesheen oo isbedeleen qaybta hoose footarkan rabaa marka inaan kusoo gabagabeeyo iyadana cashirka maadaama uu sii dheeraanayo video footarkeena u maadno footarka hoose waxaan rabaa inaan siiyo bg colorkiisu waxaan ka dhigi doonaa navy ayaan ka dhigi doonaa haddii aan refresh idhaahdo waxaa arkaysaa footarkeena noqday navy section 3 aan ku bedelo section 3 waxaan ka dhigi doonaa brown section 3 for brown some hasku ekaan hadii rabaa kale waxaan ka carrayaa midkaan okay footarka waxaan rabaa copyright inaan soo geliyo maxaan samayn doonaa copyright waxaa u samayn kartaa laba nooc inaad usoo geliso kow waxaan samayn doonaa copyright si toosaan u gelinayna copy ama waxaa isticmaali karnaa spanka waxaan ka dhex gelin doonaa copyright shift number 7 copyright salahan gaabo technology okay haddaan refresh idhaahdo waxaa arkaysaa copyright gaabo technology waxaana farta caddaan ka dhigi sidoo kale centerka aan keeno waayahay intimaw waxaan dhihi doonaa halkan baa imaan doonaa waxaan gashan doonaa
style color farta waxaan ka dhigi doonaa white color farta waxaan ka dhigi doonaa white ayaan ka dhigi doonaa dan waxaad dareemaysaa fartan cadaan laga dhigi sidoo kale centerka inaan geeyo centerka laba nooc baa u siin kartaa inaan qaybtaan center gelino inaan halkaan tagno aan idhaahno text align text no gudaha raaya text align alignmentigiisu waxay ka dhigtaa center text align means waxay ugu habaysaa center dhexda iyo textigiisa okay hadaan refresh iraado waxaa arkaysaa fartii gudaha la geyn doono centerka sidoo kale waxaan u baahanahay farta inaan somehow aan ka dhigo bold font size farta sizekeeda waxay ka dhigtaa 24 pixel sidoo kale font weightkeeda waxay ka dhigtaa ama qanjirkeeda bold haddii aan intaan refresh iraado waxaad dareemi doontaa in copyright engineer Gabo technology in la saaro halkan waxaan samayn doonaa inaan sawir soo gelino cashirka xigo sidoo kale kuwaan inaan cashir kasii qabano oo aan u yeelno sawir inaan soo gelino sidoo kale aan click la siino oo sii yeelno oo aan page kale ku sii xirno marka cashirka xigo intaan ka gaar doono waxaan rajeynaa insha Allah in wax badan ka fahamteen sida loo sameeyo bannerka saan soo sameynay sidoo kale menus-ka oo sidii maanta u diyaarinay marka xogaa waxaan yar diyaarinay banner yar oo yar quruxsan web pager oo quruxsan ayaan diyaarinay marka waa sii wadi doonaa cashirka ayaan ku soo dhamaystiri doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rajeynaa insha Allah wax badan ka fahamteen.